بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soomaaliya meel kasta aad joogtiin dalka iyo dibadda waan idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qiso yar ayaan ka hadlaa. si qaladan ayaa lee arkin, anigu hooyaan ahay. waxaan deganahay wadamada Yurub, meel kamid ah Ingiriiska. anigoo gabar yar oo shabaab waa imaaday maasha Allah. laakiin anigu diin ayaan ku xirnay. hooyadeyna Allah ii dhaafo, gabar shabaabay ahayd, isla shabaaba maasha Allah oo reer magaal ah oo diina ku dhaqmayso. hadday iga arkina dhinac kale oo maskaxdeyda dhinac kale noqonayso, hooyadii la hadli jiray, hooyadii waxay dhihi jirtay saaniyeel. magaaladan aan joogo waa magaalo yar oo tuule ah. adigu waa dhamnahay haddii been aan sheego, Soomaalida 40 famil. wiil yar oo da'diisa wiilasha 21-22 jirka ayaa magaalada isku dilay. wiilkaas yarkaa isagoo 16 sano jiro ayuu wadankaas soo galay, shooshaala haysa jiray. gabar walaala meel oo magaalada ka baxsan ayuu la geeyey. cid ay leh ayaa loo geeyey, cidda ay dalagoo kasoo cararay. kabacdii 17 markuu gaaro kaamira guriga ugu dhajiyeen, shooshaalka maasha Allah wax kasta u sameeyeen. gabadhaas abaayada ayuu ciddeeda qaangaar meynoo dhihi jiray, habar yar hooyadii lacagtaan igu dir. hooyadii sida aan hadalka ku maqlay oo gabadhii la hadashay, oo gabadha la hadashana isku fiicana gabadhii lacagta diri jirtay ayaa familkiisa la hadashay. gabadhii ayaa familkiisa dhahda 12 cunug ee hooyadii aabaha qabin, asigaa ugu weynaay. wuu soo tahriibay magafamow dhahaa uu kasoo fakaday wadan kale oo iska dhiibo, wadanka kale sharciga la sii waaye. magaaladan doon ayuu kusoo galay maasha Allah. adigu shooshaalka sharciga way siiyeen, wuu baxay magaalo Leeds, magaalo oo Ingiriis kamid oo Leeds la dhahayo aaday. magaaladii 8 bilood markuu joogo kasoo noqday. shooshaalkii soo wacay. shooshaalka guri masaajidka kasoo horjeeda maasha Allah, meesha ugu fiican magaalada aan deganahay dowladda ay laga siiyay oo sandarka waxa dhan u dhow yahay masaajidka ku xiran. wiilka yaraay dad ma xiriiri jirin. wiilka yar dadku magaalada hal mid ayaa magaalada ka calool xumaada aanan ka ooyaa. wallaahi haddaa maanta lacag haysanaa feerista waxaan sameyn lahay magaaladan masaajid ayaan ka sameyn lahay ay Soomaali iskugu imaato. awalan magaaladayna maasha Allah tuulo yar oo maskiina waaye, oo ilmana lagu korso karo, waxna aad ka qabsan kartid oo fiican. laakiin shicibka ku nool ayaa dhibkiisa badan yahay. qaasadan dadkaygan ka hadlaa, laysma caawiyo, qof lama waco, qof ma la dhasee tahay. qof kastaba qofta kale fiirinaysaa, qof wax qabanayso maleh, ma leys rabo. maanta hadduu qof naga dhimato meel aan lacagu aadayna maleh, masaajid Bakistaanka aadayna. haddii qof maanta dhimato xataa karfanta looma hayo, qofaa la weydiina, laga aruurinaa. waa tii labaad intii tacsi ku dhaceyso, nin kasii horeeyana sidoo kale maasha Allah. ninkaas laakiin masaajidka ayaa u wada istaagay muslim kasto. wiilkan yar wuxuu kusoo aaday isagoo adduunyada iska dhib qabto oo lockdown lagu jiro. dhib male, ilaahay qabrigiisa waasaxa ugu dhigo. hal midaan ka calool xumaada oo 100% awal hal kamid oo ka calool xumaanaya magaalada dadka iskuulo noolnahay. sanduuq ma laho oo qof kastaba bil kastaba 10 baan amba 20 aan isku dardarno waxbay noo noqon lahayd. haddii ciidan noqoto caruurteena islama iidaan, hadday dacsina qabatana waxaan aadnaa masaajidka Bakistaanka ayaa naga sii dhiibo lacagta, markaasaa dowladda soo shubaysaa. taas waa taas. waxa kale oo iigu murug badan oo aad ugu calool xumooda, hooyadiis aabihiis maalinka sabdigan ciidii markay ahayd, sabti ahayd, gabaroo soo wacay. gabadhii markii horeba lacagtu xiriiri jirtay, wiilkaygina ay la hadalsiisay. gabadhii wiilkii keento way la hadashay, adoogii la hadal siisay. adoogii wuxuu ku dhaca aabo aniga mana in keeni kari, wallaahi
ma awoodi inaan in keeno oo qof kii keenaysa male, mana awoodi inaan inbiilo, mana awoodi inaan deenkii ay igu keentin aan bixiyo. marka maanta ani muhiimadeyda meeshan waxaa usoo galay youtube-ka. qof soomaaliya oo aan haysta male, ilaahay soomaaliya amurteed allah u saqiro. fadlan qof kasta oo soomaali waxaan ka codsanaa, ma oo hool magaalada aan joogo maasha allah, qof kasta wuxuu lacag way dhiibeen dadku, inkastoo la iska yaryaa. dunida dhamaan ka hadlaa, yurub dham aan ka hadlaa, america meel kasta, soomaali hal mid ayay ku fiican tahay oo maasha allah. anigu dad badan iguma xirno, laakiin halihii aan awoodo karaamkayga ayaan ka dhiibanaa. soomaali hal miday ku fiicanta oo maasha allah adduunka dhammaysa waa nicmo allana siiyey. hadday noqoto wax caruuris amba qof in la caawiyo amba qof in wax loo sameeyo, waa dadka ugu horeeyo sadaqada maasha allah. waxaan iinga codsaa codkayga meel kasta oo gaaro, fadlan hooyadaas maskiinta oo dhibaataysan oo qaxooti ayay ku jirtaa liri wajaalo, aniga wajaalo ma aqaani, qaxooti wajaalo ayay ku jirtaa. qof kasta wuxuu heli karo, hooyadaas tacsi ayaa u taalo, hooyadaas soomaaliyeed oo maskiinta oo waxba haysanin, oo u malaysan karin wiilkeeda inuu adduunka ka tagay, oo ciil daraadiis asaga ayaa isdila wiilka yar. naagta shooshaalka la hadlay, anigu wadankaa maraba hooyadii ayaan rabaa iyo walaalay 6 isbuuci siiyay dhahday, 6 isbuuci siiyay dhahday, 6 isbuuc la gaarna wuu isdilay. gabar walaala xataa markii sabtiga uu kasoo tagay isniintii u tagtay, way weydiisay, wuu ka furay, eedo hooyaday iyo aan rabaa inaan baxo baasaboorkay in lee xareeyo. gabar walaalay wacday, gabadhii weydiisay, gabadh waxay citizenship aada meeshaas looga soo buubuuxiyo. gabadhi waayahay dhahday, gabadha talaaday mooganeed, 4 telefoon diro way bilaawdo, wuu ka qabo waayo, qamiisay ku xijis wuu ka qabo waayo, jimcadii dartu uu ka qabo waayo, way baxday. dariishadii way furan tahay, jikada nalka waa shidan yahay, qolkiisa jiifka waa xiran yahay. gabadhi booliisay wacday, booliiska wuxuu dhahay guriga waa guri council, haddana waan habeen madow, markii waaga oo baryo subaxdii ayaan furaynaa, hadduu noolyahan waan kuu soo sheegayna, hadduu dhimtana waan kuu soo sheegna. booliiska albaabka ayuu furay, wiilkii yaraay wuu dhintay, asaga ayaa isdilay sida ay sheegayaan dadka. aniga shaahid ma ihi, haddaan been sheegayna ilaah isaamax, waxaan dadkaas ka maqla ayaan ku hadlaa. wiilkii yaraay booliiska wuu qaatay, anagaa soo jawaab celiya inay dheheen dadkii magaalada jooga waxaa la iska araaruriye, dadku wuu yaryahay, dadku badanaa magaalada degan ma shaqaystaan, waa dad iska qaata benefit oo ilmo yaryar haysto. marka waxaan ummadda ka codsanaa meel kasta ay joogto, khaasatan america, sweden, norwegian, australia, meelaha dhamay soomaalida joogto, carab ha noqoto, meel kasto, qof kasta waxay awoodo hooyadaas aan lacag u aruurino. lacagta aan u aruurino wejiga ilaahay, ha weydiini qabiilkoo yahay, ha weydiini intuu ka imaaday. wuxuu dhaha laa ilaaha ila allah maxameda rasuulallah sallallahu alayhi wasalam. taas daraadiis ugu qaada. hooyooyin baa nahnay, wiilku waa 21 jir, waan dhalnay kulligeen, dhib la-aanaan dhalnay. waa fahmi kartiin qurbaha, markaa family tahay iyo markaa single tahay way kala yartahay. dumarka iyo raggana isku raclima oo ragga haddoo ciishooda dil ayuu ka xigaa, laakiin dumarka soo noqoshadeeda ayaa badan. marka waxaan inga codsaa qof kastaba wiilkaas in ani saaraana habi waxaan ku inaan lacag loo aruuriyo. taleefankeyga ayaan insiinaa, hana u fakerinaha lacagta loo aruurinayo wiilkaas in lacag qof ay qaadan kartaba ha u maleynaha. xisaab ayaa adduunka taalo, lambarkiisa ayaan hooyadiis lambarka laga hela ayaan keenaa, intaan ka keenaa lambarkeyga ayaan insiinaa. qof alla qofti rabta inay sadaqa baxsato, lambarkeyga ayaa shaashada kusoo qoraa, lambarkaas iga soo kontaagiya. jimcada maanta ayaa la dhiiba, meydka ayaa la dhahay, anigu ma maqlin, magaalada kama maqlin, laakiin gabar abaaya ayaa iga soo sheegtay magaalo kalo. waa inaa ogaadaa maanta haddii meydka la dhiiba iyo haddii kalo. haddaan soo ogaada meydka in maanta la dhiiba wuxuu isku dilay iyo sida farmameshinka aan soo helanay,
waan haddana cajalad kale ayaan soo duubayaa. anigu lambarkeyga ayaa shaashada in soo saaraa, waan in baryaa, wejiga ilaahay ayaan ingu baryaa. ilaahay wejigiisa qofti rabta inay aakhira aragto cidaas ha caawiso. ilaahay dartiisu caawiya. ilaahay darti 2 beri iyo 2 cabo waa oynayay haddaan maanta lacag leeyahay. summa wallaahi haddaan maanta lacag aniga aan haysto, hooyadaas iyo ilmaheeda ayaan meel kafaalo lahay, ayaan ilaa caruurteeda ay ka weynaataan biili lahay wallaahi haddaan haysto. laakiin aniguna daruuftayda waxaan cuno waan haysta alxamdulilah. 6deeda laxab waa qaba alxamdulilah. taajir ayaan waxaan ka ahay, jisadkayga dhan waa kaamil alxamdulilah wa shukru caalamin. taasna waxaa laga helaa ilaahay mahadaas. wana qoftii aragta qalad ha isaamaxdo, wana qoftii hadalkayga oo dhibsadana wejiga ilaahay igu dhaafto, ha igu saamaxdo. yaana lay arkin si kale inaan u hadlaayo. please youtube-ka waan ka cabsoodaa inaan ka hadlo, because dadku afkaaday dayayaan wixii kasoo baxo. waan cabsoonaa, ma raba in lay maago amba qof imaagto amba aan qof maago. please wejiga ilaahay waan in baryaa, wejiga ilaahay laygu dhaafo. ma soo geli laheen mana hadli laheen, laakiin hooyadii siday u hadlaysa ayaa qalbigayga xanuun ka dhigay. qaluubteyda aad ayay hooyadiis u xanuunjisa. xanuunka hooyadiis qalbigayga xanuunjisa ayaan u hadlaa. lambarkayga ayaa shaashada soo saara. qof alla qoftii rabta inay sadaqa dhiibato, mobilkayga lambarkayga halkaas soo saaraa. ha isoo wacda ilaa wiilka lambarkiisa aan kasoo helo, hooyadiis lambarkeeda aan soo helo, shaashada aan soo saara. waa mahadsantiin, jasaakallah kheyr. soomaali waa dad dhiig leh, waa dad xay ah, waa dad nool, waa dad maasha allah ah, waa dad gacmaha isqabsada xagga lacagta aruuriska, amba xagga dadka loo duceyna, amba xagga dadka wax loo taraa, amba hooyada dhibaataysan, aabaha dhibaataysan. jasaakallah kheyr soomaaliya. ilaahay meel kasta aad joogtiin muraadkiina allah insaalo. owlaadiina insi jinsi iyo shaydaanka allah inga xijaabo. owlaadeyna inay stress ku dhacdo allah nooga xijaabo. owlaadeyna ilaahu noo xaafid. wadamo waxaa imaana ana fahmi karin, diina maku fahmi karno, dhaqan maku fahmi karno, caadaad maku fahmi karno. ilaahay hana astiro, suma rabbi hana astiro. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.